musabixi cabdi oo arrintaasi ka warramaya waxa uu yidhi markii ruushka naloo qaaday ee nala geeyey waxaan si gaar ah u soo bartay diyaarad la odhan jiray L-28 Bomber oo markaa aynu 3 xabo oo keli ah ka haysanay. diyaaradda 3 qof baa ku duuli jiray, navigator oo aan anigu soo bartay, duuliyaha iyo ninka hubka ridaya ee xagga dambe ku jira. 3 nin baa diyaaraddan ku duuli jiray. markii aanu soo qalin jabinay waxaanu shaqada ka bilownay magaalada Xamar. waxaan xusuustaa in aanu Xamar ka guureynay maalintii ay labada diyaaradood isku dhaceen. maalintaas ciidankii guureeyay ayaanu ahayn. waxa ay taariikhdu ahayd sanadkii 1975. allaha u naxariistay waxa ku geeriyooday diyaaraddaasi dhacday Cabdiraxmaan iyo Cabdirashiid. waliba Cabdirashiid ayaanu isku koox ahayn oo aanu mar soo wada baxnay. meel baanu wax ku soo wada baranay oo aanu ka wada nimid. diyaaradda 22 ah ayaa horkacaysay, annaguna waanu ka daba duulaynay, laakiin markaa garoonka ayaanu ku jirnay. maalintaasi ayaanu Baydhabo u guurnay. Baydhaba waxaanu deganayn ilaa 2 sano iyo meelahaasi. kadib waxaan ka mid noqday ciidankii lagu furay garoonka saldhigga Balidoogle. qoladii ugu horeysay ee la geeyay ayaan ka mid ahaa. halkaasi ayaanu joognay ilaa sanadkii 1977 markii dagaalku qarxay. waa dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya. saldhiggaasi Balidoogle ayaan sidaa dagaalka kaga galnay. waxaan xasuustaa in aanu dhinaca iyo beerri duqeynay iyo doolo. waxaan u guurnay saldhigga magaalada Berbera. sidaa ayaan dagaalka ku wadnay oo annaga oo Berbera ka duulayna ayaanu duqeyn jirnay Jigjiga, Harar iyo jiidaasi oo dhan. raggii dhulka gawda ku hayay ayaan ka mid ahaa. anigu markaasi kamaan ag dhaweyn talada guud ee dagaalka iyo madaxdii dagaalka hogaaminaysay, balse waxaan ka warhayaa ciidanka cirka oo aan ka tirsanaa. dad badani waxa ay yiraahdaan ciidanka cirka Itoobiya ayaa inaga xoog badnaa. waxaan sheegayaa in aanay inaga xoog badnayn ee ay Soomaaliya ku xoog badnayd. waxaanu haysanay diyaaradaha ugu casrisan. waxaanu haysanay MiG-22. 3 diyaaradood ee kale ee bambarka ah ee aanu ku duulaynay waxay ahaayeen 3 diyaaradood oo aan geeska Afrikaba oolin waqtigaasi marka loo eego xoogooda iyo hubqaadkooda. mid ka mid ahi waxay nagaga dhacday annaga oo tababar ku jirna oo waxa ay ku dhacday xeebta magaalada Muqdisho. habeen ayay ahayd Xamar xeebteeda ayay ku dhacday. labadii kale ayaa dagaalka lagu galay. waxaan xasuustaa in heerka aynu bariga ka joognay ciidanka cirka ay Afrika wax yari ka joogeen. ilaa 20 diyaaradood ayaanu galab isku xidhnay bishii Sebtembar. 12 ayay ahayd maalintaasi. inta aanu Hargeysa goor casar ah ka duulnay, diyaaradahaasi waxa ay lahaayeen MiG-22 gaar ahaan codkeeda ka dheeraysa, MiG-17 waxay lahaayeen sidoo kale Bomber oo isku xidhan. way adkay dawlad Afrikaan ah oo tirada inta leeg waqtigaasi haysatay ama hal mar wada kicin karaysay. dhibaatada jirtay waxay ahayd ciidanka cirka Itoobiya way naga waayay aragsanaayeen oo dhinaca khibradda ay naga sareeyeen. halka ay wax iska bedeleen waxay ahayd iyaga oo naga waayay aragsanaa. ciidankeena cirku annaga oo dhowr sano uun diyaaradaha dagaalka gacanta ku haynay, gaar ahaan diyaaradda xoogga ahayd ee weerarka ahayd ee MiG-22 oo markaa ragga ku duulayay ninka ugu badani 2 sano ku duulay. waxa la bilaabay aakhirkii 1975 waxaanu dagaal ku dhacay 1977. MiG gaar ahaan MiG-17 ayaa hore loo yaqaanay oo rag waaye arag ahi ku soo duulayeen, laakiin MiG-17 waa diyaarad yar oo kuwan kale aan la awood ahayn. sidaas darteed inaga oo aan wali khibradeeda ka adkaanin, MiG-27 ayaa dagaal ku dhacay. taa beddelkeeda Itoobiyaanku diyaaradihii F-ta ahaa ee ka biliitay MiG-17 ee ay wateen ay duuliyaashoodu 10 sano ku soo duulayeen oo khibrad weyn u lahaayeen. kadib marka la isku yimaad waxa loo yaqaan dogfight-ka, ninkii waaye aragga ahaa marka uu arko diyaaradii 22 ahayd oo in ay u soo dhawaataba aan ahayn oo ka hub badan oo ka awood badan ayay haddana soo ridayeen oo dhaqdhaqaaqa ay ahayd. weeraradaasi rag badan ayaa naga dhintay. diyaarado badan baa naga soo dhacay. qaar buurta Kaaraamardha ayay ku dhaceen. waxa ku dhintay nin Abakor la oran jiray. anigu waxaan duulay in ka badan 20 sorti. waxa weeye marka ay diyaaraddu weerarka tagto ee hubka soo ridayso waxaanu qaadi jirnay hub gaadhaya ilaa 60 oo bambooyin ah. marka waxaanu garaacnay Jigjiga, Kaaraamardha maalintii ugu dambeysay waxaanu ku sameynay wax aanu waraabana ari ku sameynin. waxaan garaacnay Beerri, Doolow iyo goobo kale. waxaanu duqeyn jirnay jidgooyooyin aanu u sameynayno isu socodka ciidamadooda oo dhan ayaanu bamgareyn jirnay. Berbera ayaan ka duuli jirnay. diyaaradahan bambarka ah ee aanu ku duuli jirnay waxa ay ahaayeen
diyaarado la ilaaliyo oo istiraatiiji ah. nasiib darro berbera ayay nagaga daba yimaadeen oo waa kuwii berbera mid nagaga gubay iyada oo aanu shidaal iyo wax walba ka buuxinay oo aanu kicid diyaar u nahay oo duulimaadkeeda wax ka yar 3 daqiiqadood ka harsan yihiin ayay dhinaca badda mar kaliya nagaga soo boodeen oo aanan kaba filin in ay inta range-koodu gaadhayo. diyaaradahaasi ayay iska ilaalinayeen Etoobiyaanku. bartii ay taallay ayay ku qarxiyeen oo ku gubeen. qiiqii ka baxayay buuraha Sheekh ayaa laga arkay. sidaasi ayaan taa ku weynay. tii kale ayay noqotay aniga iyo nin Faarax la yiraahdo oo ku duulayna waa kuwa qori anti aircraft ah nagaga soo dhuftay Jigjiga iyada oo gubanaysa ayaan ka dejinay madaarka magaalada Hargeysa. waxa ay ooli jirtay dhinaca koonfureed ee madaarka. waan xasuustaa ta kalena waaniga ku soo sheegay in ay ku dhacday xeebta magaalada Muqdisho. sidaasi ay 3 diyaaradood ee bambarka ahaa dhammaantood inaga baabeen. 3diiba dagaalka oo socda ayaan sida ku weynay. markaas ayaa anaga dagaalkii noogu dambeysay. markii 3deedii diyaaradoodba sida ku burbureen qoladii Ruushka ahaydna waa tii xiriirka aynu u goynay ee uu xumaaday xiriirka Soomaaliya iyo Ruushku. waxa sida meesha kaga baxay ciidan dhan oo la oran jiray bambardiyerka. waxaanu ahaa ciidanka hubka ugu culus ee cirka ah ku dagaalamayay ee wax naafin kariyay. waxa aniga markaa la ii bedelay xaruntii taliska guud ee ciidanka cirka. waxa la igay waaxdii xiriirka dibadda. waxa madax noo ahaa oo aan la shaqayn jiray nin wanaagsan oo la oran jiray Hayd. nin aad u wanaagsan buu ahaa. kaasi ayaa muddo aan la soo shaqeeyay. halkaa waan ku ilbaxay oo waxaan nasiib u helay in aan wax badan ka faa'iido. xiriirkii Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa wanaagsanaaday. waxaan markaa ka mid noqday wafdigii ugu horeeyay ee ciidan Soomaaliyeed ah ee gala xarunta gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon loo yaqaano. waxaanu hogaaminayay Cumar Xaaji Masale aniga iyo nin Ciise Soofe la yiraahdo. Mareykanka waxa markaa ambassador ka ahaa kiimiko ninkii la oran jiray. maalmaha oo aan ugu tagnay markii dambe dhowr jeer baan Mareykanka ku noqnoqday oo koorasyo dheeraad ah oo kala duwan oo dhinaca ciidamada cirka ah ayna soo siiyeen. aniga iyo Ciise Soofe ayaa naloo diray meel la yiraahdo Dayton. qoladii ugu horeysay ee ay koorasiyaan baanu ahayn. kooras gaaban oo procurement ah ayuu ahaa. sida saanada hubka iyo waxa loo kala iibsado. sharciyo badan iyo xeerar la raaco ay leeyihiin arrimaha ciidamada cirku, gaar ahaan saanada iyo hubka militariga ciidamada cirku. markii dambe haddana kooras kale oo dhinaca saadka ah iyo maamulka ayaa la ii diray. kaasi oo aan ku soo qaatay gobolka Virginia. 2 sano ayaan isna halkaas ku soo qaatay. aniga oo Mareykan jooga markaas ayaa kooxdeedii ciidamadii aan ka tirsanaa darajooyinkii loo kordhiyay. waxaana laga dhigay gaashaanlayaal dhexe. halkaas ayaa wax darajo aniga iigu dambeysay oo darajadaasi maan qaadan oo anuu mijir ayaan kaga tagay ciidamada. sidaas ayuu yiri Muuse Biixi Cabdi oo ka tirsanaan jiray ciidamada cirka ee Soomaaliya.